arrinta Somaliland aniga hargeysa xundurteeda ku aasan hooyaday oo 80 jir ah baa joogta 7 caruur ay igu dhashay dugsi hoose dhexe sare ayaan ka bartay 17 sanadood u dambeeyay baan ka shaqeynay lagu kala duwanaan karaa waayo aniga ku dhawdo beesha dhaxan ka soo jeeda fikir kalena waan qabaa oo ah war sideebay dib ugu noqon karnaa u qori karnaa midowgii 60kii maxaynu ka yeeli karnaa ka macnaheedu ma aha beesha dhaxaynay Soomaaliyeed ay Somaliland wada aaminsan tahay macnaheeduna ma aha beelaha darafyadu inay Soomaaliyeed wada aaminsan yihiin dad badan oo beelaha darafyada ah ama awdal ka soo jeeda ama Soomaaliya sanaag bari ayaa maamulka Somaliland kamid ah fikir ahaan ku qanacsan Somaliland inay goodo marka yeynaan u arkin wax beesha dhaxay u gaar ah yeynaan fikirka kala duwanaanshihiisana isku diidin ee aan dood qaala rabbi inni da'awtu qawmi laylan wa nahara فلم يزيدهم دعائي وإني كلما دعوتهم ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا marka nabi nuuxoo doonayay inuu midnimo ka wacdiyo Soomaaliland hargeysa iyo burco dhexdooda ay ka dhigan tahay laakiin in reer hargeysa iyo reer burco iyo Soomaaliland fikiraan oo yiraahdaan sideedaynu inaga qudheenu oran karnaa balaan A waa kan laakiin balaan B sidoo ku iman karaa waa wax loo baahan yahay qof kasta oo yimaadana waa ku qasban yahay qof kasta oo yimaado dawladda federaalku ajandaha waa ku qasban yahay midnimada inuu ka shaqeeyo dastuurka dhigaya qof kasta oo imanka la doorto Soomaaliland xataa xisbiyada mucaaradka ah haddii yimaadaan ay bowbowle waxa weeye ku qasbanaanayaan in ay iyaguna raacaan wadadaas muxuu yiri Karl Marx men make their own history but they do not make as they please but under circumstances existing already marka duruufahaas Soomaali hadaan nahay in wada haysta Somaliland nagu haysta Soomaaliya nagu haysta sideedaynu duruufaha uga bixi karnaa waxaan aaminsanahay in aynu wada hadalladaas marka Ilaahay yiraahdo aan dib u jeexno idinkuna dhinaciina si fiican isu diyaarisaan annaguna dawladda federaalka Soomaaliya xal yimaado 94 buu cigaal fikiray anigu waxaan aaminsanahay mufakir Soomaaliyeed oo siyaasi oo Soomaalo dhan siyaasi lamid yahay haduu jirayna uu yar yahay anigu saan u malaynayo philosopher inuu ahaa waliba ayaa wuxuu eegay wadada dheer ee muuqata ajanduu keenay golaha wasiirada Soomaaliland wuxuu nimayahay aynu maanta Soomaaliya halkaas ay maraysaa aynu calankii iyo caasimadii iyo madaxtooyadii iyo qaramadii midoobay hargeysa keenno opposition-kii ugu weynaa oo sidaan idhi qaylo iyo violence golaha dhexdiisa ka dhacday waa xaqiiqo dhab ah oo dadkii joogay ka waramayaan madaxweyne farmaajo way ka go'an tahay wada hadalladu waanu dadaalaynaa waanu dib u bilaabaynaa haddii Ilaahay yiraahdo haddii se ayna bilaabmin yaan walaalaheena ha u arkina in la isku qancinayo maya igad saasay tiri Afrika saasay tiri Mareykan iyo Ingiriis saasay yiraahdeen marka ha ii joogto halka Somaliland way cabsida aan qabaa waxa weeye Soomaaliya oo dhan hadeynaan isku tashan idinkuna aydan fikriga hal abuur keenin annagana dawladda federaalka xilka saaran iyo muslimiinta baarlamaanka ku jira labada goleba aysan fikir keenin Soomaaliya waxa ay ku dambeyn doontaa China iyo Taiwan